kulanti wanaagsan halkan waa Xogaya TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn dawladda federaalka Soomaaliya oo dejisay qorshe ay kula wareegayso degmada Doolow ee gobolka Gado iyo Villa Soomaaliya oo ciidanka Itoobiya ee ku sugan degmadaasi ku qancisay in aysan ka barbar dagaalamin ciidanka Axmed Madoobe xog faahfaahsan oo ku saabsan ayaa in la wadaagi doona dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta kumanaan askari ku soo bandhigtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo xogta ajendaha Villa Soomaaliya ay ka leedahay ciidankan miyay yihiin ciidamadii isku furi lahaa Muqdisho ilaa Kismaayo wararkii ugu dambeeyay ayaa in la wadaagi doona tuhun iyo kala shaki xoogan oo haatan soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Villa Soomaaliya oo durbaba dhaqaaqay ciidan ka bilowday gudaha deegaanada Galmudug xilli la filayo in saacadaha soo aadan kulan culus u dhex mara Qorqor iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Galmudug oo qarka u saaran in ay qaado wadadii koonfur galbeed dawladda federaalka Soomaaliya oo bandow ku soo rogtay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan Baydhabo ku amray in ay isaga baxaan magaalada Baydhabo xilli Villa Soomaaliya ay cabsi ka qabto in qaar ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed ee deegaanadaasi tagay ay abaabulaan isku dhacyo ka dhacay magaalada Baydhabo qodobadaas oo faahfaahanaya saaxiibayaal ku daawo doontaan warkeenan balse daawada inta aan guda gelin fadlan ku soo biir kanaalka muuqaalkan like dhekana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha iyo wararkan halkan ku soo gudbino aynu ku bilownay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la soo wariyay in ay dejisay qorshihii ay magaalada Doolow ee gobolka Gado wala wareegi lahayd hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe iyadoona Villa Soomaaliya doonaysa in haatan ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi gaar ahaan degmada Doolow ku sugan oo la aaminsan in Axmed Madoobe iyagu ay ku hayaan degmadaasi ay ka baxaan garabka Axmed Madoobe si degmadaasi ay gacanta ugu gasho dawladda dhexe ee Soomaaliya Villa Soomaaliya ayaa tan iyo markii laga guuleystay lafta galeen waxay dhaqaaqay ciidan ka bilowday gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya halkaas oo ah gobol muddo dheer la tacaalayay isku dhacyo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Axmed Madoobe iyadoona dhowr jeer oo kala duwan ay gobolkaasi ka dhaceen dagaalo qaraar waxaana gobolkaasi sidoo kale ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo tiro dheeraad ku jooga ciidamadaas oo iyaguna qayb ka ah saamiilayda gobolkaasi saameynta ku leh siyaasadda ka jirta gobolkaasi aan deganayn dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan la soo warinayaa inay bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka bilowday gobolkaasi iyadoona si gaar ah u doonaysa in degmada Doolow ay soo gasho gacanta dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sidaasi ku hanjabay shalay ciidamo iyo saraakiil ciidan oo ku sugan gobolkaasi kana amar qaata dawladda dhexe ee Soomaaliya Villa Soomaaliya ayaa saacadii u dambeeyay kordhisay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolkaasi iyadoona ay soo taliyaan walaac iyo cabsida laga qabo iyadoona sidoo kale xoga soo baxay ay xaqiijinayaan in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay wado dheeraad oo ay doonayso in gobolkaasi lagu geeyo ciidamo tirabeela sidoo kalena ciidamadaasi ay ka qayb noqdaan dhinacyada ilaalinaya doorashada qofkii codka ee Villa Soomaaliya haatan doonayso inay ka qabato gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gado ayaa lagu wadaa in laga dejiyo doorashada qofkii codka sanduuqyadeeda iyo guddiga doorashada si halkaasi ay uga bilaabato doorashada Villa Soomaaliya iyadoona sidoo kale ila xoogaal iyo warar soo baxay oo si weyn isku soo taraya ay muujinayaan in Villa Soomaaliya ay haatan sidoo kale doonayso in gobolkaasi laga tirtiro marka hore saameynta maamulka Axmed Maxamed Silaax Madoobe oo saameyn ku leh qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi inkastoo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay gacanta ku hayso magaalada Garbahare balaxa weeye inta badan degmooyinka gobolka Gado haddana la iskama indhatiri karo saameynta Axmed Madoobe ee gobolkaasi iyo inuu carqaladay karo markaasi doorashooyinka Villa Soomaaliya ay doonayso in gobolkaasi ay ka fuliso sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya saacadii ugu dambeeyay gobolka Gado dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa si weyn u doonaysa inay ku qanciso ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi inay ka baxaan garabka hogaamiyaha Jubbaland si dawladda dhexe ee Soomaaliya ay si fudud uga wareegto degmooyin ay ka mid tahay Doolow oo haatan xarunta ugu weyn ee gobolka Gado uu ka joogo ciidamada taabacsan maamulka Axmed Maxamed Silaax Madoobe wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa shalay booqday markaasi xarunta ay degayn ciidanka Itoobiya ee ku taala magaalada Baydhabo isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha Itoobiyaanka waxaana kulanka Fiqi iyo ciidanka Itoobiya ay sheegayaan xoguhu inuu xambaarsanaa laba qodob oo weyn qodobka koobaad ayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay amartay ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanada markaasi koonfurta Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan Baydhabo inay wixii amni ah kala dambeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya aanayna taageeri karin dhinacyada siyaasadeed ee ka jira
gobolada koonfurta gaar ahaan dhinacyada ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa si weyn Ethiopiaanka ugu cadaadinaysa in ay qaataan go'aan ah in aysan la safakirin maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Maxamed Silaax Madoobe si la mid ah lafta garan oo Ethiopiaanku ay ka bixeen garabkiisa taasi oo sababtay in filla Soomaaliya ay si fudud meesha uga saarto maamulkii koonfur galbeed ee muddada dheer ka talinayay deegaanadaasi Ethiopiaankuna ay garab iyo gaashaan u ahaayeen. si kastaba haatee dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in si mid lafta garan ay Ethiopiaanku markooda garabkan ka baxaan ciidanka markaasi Axmedoobe ee ku sugan gobolka Gado oo la aaminsan yahay in ay degmada Doolow in gacanta ay ku hayaan ciidanka Axmedoobe ay si weyn uga saaciday dowladda Ethiopia oo halkan oo ah magaalo xuduudeed aan doonaynin in ay ka taliso amarada dowladda Soomaaliya. ajandayaasha waaweyn ee Ethiopiaanka ku sugan gobolka Gado ay sida weyn ugu diidan oo halkaasi ka dhaqan galo qorshaha filla Soomaaliya ayaa in Ethiopia cabsi xooggan ay ka qabteen halkaasi haddii gacanta u gasho dowladda Soomaaliya ay halkaasi keento ciidamo laga keenay dalka Masar kuwaas oo muddo dheeraad Masar ay doonayso in la keeno gudaha Soomaaliya hase haatee Ethiopiaanku ay dhowr jeer kala duwan ku dadaaleen sidii dib loogu dhigi lahaa ciidamadaasi caqabadna ay ugu noqon lahaayeen. si kastaba haatee dowladda Ethiopia ayaa la xasuustaa in dhowr jeer kala duwan ay ka hortimid qorshe ay wadatay dowladda Soomaaliya lana doonayay in laga hirgeliyo gobolka Gado kaasi oo u weynaa qorshihii New Jubbaland oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya doonaysay in ay markaasi magaalada Garbaharey ka dhiso maamul cusub iyadoona qorshahaasi ugu dambeyn uu ka soco waayay dhinaca dowladda Ethiopia oo saameyn ku leh gobolkaasi kadib markii si weyn ay u taageertay ciidanka Axmedoobe ee ku sugan gobolka Gado. Ethiopia ayaa sidoo kale ciidamada markaasi ku sugan degmada Doolow ee maamulka Axmedoobe taabacsan waxay ku wareejisay hub iyo saanad kala duwan iyadoo soo kala siisay tababaro dheeri ah iyo saanad ciidan oo dowladda Ethiopia ay ku qalabaysay ciidanka Axmedoobe ee ku sugan gobolkaasi. si kastaba haatee xogaha haatan soo baxay waxay xaqiijinayaan in dowladda dhexe ee Soomaaliya oo kaashanaysa Turkiga ay si weyn u doonayso in ciidanka Ethiopia ee ku sugan gobolkaasi aanay taageerin maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Maxamed Silaax Madoobe si taasi ay u fududaato in filla Soomaaliya ay gacanta ku dhigto gobolkaasi una ka hirgalo qorshaha filla Soomaaliya ee doorashada qof iyo codka. daawadayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawadii haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanalkana subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan si aad mar walba heshid xogaha iyo wararkan halkan ku soo gudbino. haddii aad hore noola joogtayna ku mahadsanid daawadii la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta kumanaan askari ciidamo kor u dhaafaya ku soo bandhigtay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyadoona inta badan hayweeyada iyo magaalooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ay maanta u xirnaayeen gaadiid tirabeel oo siday ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo la sheegay inay si weyn ugu qulqulayeen gudaha magaalada Muqdisho. ciidamadan oo laga soo bixiyay qaar ka mid ah xiriyaha military ee ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya iyo daafaha magaalada ayaa si weyn ugu qulqulayay qaar ka mid ah wadooyinka waxaana ciidamadaasi ay isugu jireen ciidamada markaasi guutada 77 iyo sidoo kale ciidanka gorgor ee ay tababaraan dowladda Turkiga. ciidamadan oo si weyn u qalabaysan kuna hubaysnaa gaadiidka gaashaamana ay siisay dowladda Turkiga Soomaaliya ayaa sidoo kale watay saanad military oo dhammaystiran iyo gaadiidkooda oo si weyn markaasi ay ugu muujinayeen wadooyinka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ilaa haatan ma jiro ilo military oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ka hadlay ciidamadaasi iyo ajandaha filla Soomaaliya ay ka leedahay hase haatee la xogaala ayaa xaqiijinaya in ciidamadaasi filla Soomaaliya ay ka soo qaaday daafaha iyo gudaha xiriyo ku yaala oo markaasi lagu xiriiriyay dhinaca wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya isla markaan la doonayay halkaasi ay ku sameeyaan diyaar garowga u dabaaldegida maalinta guud ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil ayna ka dhinsan tahay wax ka yar dhowr bari. dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in halkaasi ay ku soo bandhigto wacdaro ciidan iyo awood military oo madaxweyne Xasan Maxamuud uu dhisay tan iyo 4 sano oo xilka hayay xilli madaxweynaha muddaxileedkiisu gabagabayay waxaana filla Soomaaliya doonaysaa in dowladtuskan ay ku beeniso warar ay suuqa galiyeen kooxaha mucaaradka gaar ahaan kooxdii nabad iyo nolol ee hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo si weyn ugu faanay inuu dhisay ciidanka qaranka Soomaaliya balse madaxweyne Xasan Maxamuud uu burburiyay awoodooda tan iyo markii uu xilka isaga tagay. arrintaas oo filla Soomaaliya ay doonayso inay beeniso ayna soo bandhigto cudud ciidan iyo sidoo kale sar u qaadida hubka ciisriga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay heleen tan iyo markii laga qaaday cunaqabatayntii saarneed Soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka ee qomaatig u kac hubka culus iyo sidoo kale madaafiic kala duwan oo casri ah taas oo Soomaaliya aanay helin tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya.
si kastaba haatee waxa ay soo taraya xogo kale oo la xiriira in kadib markaasi diyaargarowga 12 abriil ay dowladda Soomaaliya doonayso in ciidamadan loo daabulo qaar ka mid ah gobolada dalka si ay u hirgeliyaan qorshaha doorashada qof iyo codka ay filo Soomaaliya ay doonayso inay dalka qabato aanana ula dagaalamaan maamul goboleed kasta oo isku dayay inuu filo Soomaaliya ka hor yimaado qorshaheeda sidoo kalena ay bilaabaan hawlgalo ka dhan ah kooxaha argagixiso mucaaradka ayaa muujiyay walaacaya cabsi sii kordhaysa ay ka qabaan qorshaha filo Soomaaliya in xoog lagu hirgeliyo cid kasta oo ka soo horjeedana la dagaalamo doorashooyinka ay gadaal ka riixayso dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Maxamuud talaabadaas oo mucaaradka ku abuurtay walwal xoogan maadaama haddii ay isku dayaan in ay ka hor yimaadaan qorshaha Xasan Maxamuud uu adeegsan karo awood ciidan taas oo dalka gali karta xaalad halis ah si kastaba haatee filo Soomaaliya ayaa haatan cashar cusub ka baratay dhinaca koonfur galbeed waana in ciidamada dowladda loo adeegsado cid walba oo iska hor timaado qorshaha madaxweyne Xasan Maxamuud talaabadaas oo madaxweyne Xasan Maxamuud markii ugu horeysay uu ku guuleysay haatan la sheegayo inuu doonayo inuu awood ku maquuniyo cid kasta oo ka hor timaada wararku waxay xaqiijinayaan in dowladda Soomaaliya haatan ciidamadan ay diyaarinayso aynana doonayso in awood ciidan loo isticmaalo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo cid kasta oo ka hor timaado qorshaha filo Soomaaliya ee doorashada qof iyo codka wararka xogaya TV ayaa daawanaysan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa la soo warinayay in haatan isaga iyo madaxweyne Xasan Maxamuud ay si weyn u kala shakisan yihiin iyadoona cabsi xooggan laga qabo inay kala dhaqaaqaan dhinacyadu taasi oo sababi karta in filo Soomaaliya awood ciidan ay isku daydo inay ku maquuniso Qoorqoor iyo sidoo kale deegaanada galmudug dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay kordhisay awoodeeda ciidan ee deegaanada galmudug iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka bilaabiso waxaana sidaa xogii hore in kugu soo gudbeen in filo Soomaaliya ay deegaanada galmudug ka dejisay diyaaradaha ciidamada sida iyadoona sidoo kale la filayo in tababar lagu soo xiro markaasi gudaha deegaanada galmudug ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo kor u dhaafaya ilaa 1000 askari sida ay xaqiijiyeen ila xogaala madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo si weyn dibadda u meermeerayay ku dhawaad muddo bila ayaa gudaha ku soo laabtay iyadoona Qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho muddo ku dhow 24 saac halkaasina uu ka wado dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed culus waxaana la filayaa in madaxweyne Xasan Maxamuud iyo isagu ay ka wada hadlaan saacadaha soo aadan qaabka doorasho ee galmudug ka dhacaysa iyo in galmudug halkaasi ay ka dhaqaaqayso filo Soomaaliya iyadoona ay suurtagal tahay haddii Qoorqoor uu ku qanci waayo ajandaha filo Soomaaliya in uu qaadi karo tallaabada lamid lafta gareen taasi oo suurtagelinaysa in dhinaca kale filo Soomaaliya ay adeegsato awood ciidan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa si weyn markaasi meel iskula dhigala musharaxa galmudug ee doorashada qof iyo codka ugu tartamaya galmudug taas oo markaasi filo Soomaaliya ay ka meermeerayso in Qoorqoor ay siiso musharaxa ugu taagan xilka madaxtinimo ee galmudug iyadoona ay jiraan dhinacyo si dhow saaxiib ula madaxweyne Xasan Maxamuud kuwaas oo si weyn u doonaya in uu iyaga noqdaan musharaxiinta u aadaya filo Soomaaliya doorashada qof iyo codka Qoorqoor ayaa la aaminsan yahay inuu ka soo horjeeso karo haddii filo Soomaaliya isku diido inuu noqdo musharaxa galmudug ee madaxtinimada deegaanada galmudug ee doorashada qof iyo codka ee madaxweyne Xasan Maxamuud doonayo haddii uu Qoorqoor waayo taasina waxaa suurtagal in Qoorqoor uu ka hor yimaado qorshaha filo Soomaaliya talaabadaas oo la aaminsan yahay inay sababi karto dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan si kastaba haatee waxaa soo taraya wararka la xiriira arrimahan iyadoona markaasi laga dhul sugayo maalmaha soo aadan haddii ay Qoorqoor iyo madaxweyne Xasan Maxamuud isqabtaan filo Soomaaliya ay suurtagal tahay in ay bilowdo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kana hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bandow culus ku soo rogtay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed kadib qalalaasi amni oo filo Soomaaliya cabsi xoogan ay ka qabto inay ka dhacaan deegaanadaasi eriyadii lafta gareen kadib dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Maxamuud oo kulamo culus oo siyaasadeed iyo kuwa amni ka wada gudaha magaalada Baydhabo ayaa madaxweyne Xasan Maxamuud la kulmay dhammaan dhinacyada ay qosayso amniga magaalada Baydhabo iyo saraakiisha militariga Soomaaliya sida markaasi taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliya taliyaha hay'adda nabad sugidda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ammaanka ee gobolka Bay iyo sidoo kale magaalada Baydhabo iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaawna degmada Baydhabo ee gobolkaasi Bay iyadoona looga hadlay xaaladaha guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay amniga iyo sidii looga hortagi lahaa in qalalaasa uu ka dhaco magaaladaasi loona darsado kooxdii lafta gareen ee laga eriyay magaaladaasi dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa dhinaca kale la xaqiijinaya inay amartay in siyaasiyiinta koonfur galbeed ee soo gaaray magaaladaasi si gaar ah wasiirada filo Soomaaliya sida weyn uga taageeray dagaalka ka dhanka lafta gareen ay ku amartay inay isaga baxaan magaalada oo ay dib ugu laabtaan
markaasi magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana siyaasiyiintaasi ka mid ah siyaasiyiin waaweyn oo miisaan culus ku leh deegaanada koonfur galbeed oo ay ka mid yihiin wasiiro gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee dhinacyo kala duwan iyadoona saacadii ugu dambeeyay Baydhabo ay ka soo baxeen diyaarado siday mas'uuliyiintaasi fila Soomaaliya ayaa walaac ka qabtay in haddii mas'uuliyiintan ay sii joogaan ay sababi karaan isku dhacyo dadka deegaanka dhexdooda taas oo halis gali karta amniga guud ee magaalada Baydhabo iyo in markaasi dad kale ay ku dhiiradaan hubka dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa soo saartay amar culus oo la xiriira amniga magaalada Baydhabo iyo in askarta aysan hubka qaadan karin iyo in aan la ogolayn cidda amniga magaalada ka shaqeyda maahan cid kale in hub ku dhex qaadato gudaha magaalada Baydhabo iyadoona ciidankii dawladda iyo kuwii la magac baxay badbaadada koonfur galbeed ee lafta gareen ka eriyay magaalada Baydhabo la geeyay xiriyo ku yaala magaaladaasi lagana saaray gudaha magaalada si kastaba haatee dawladda Soomaaliya ayaa isku dayeysay inay xasiliso magaaladaasi isla markaana uusan ka dhicin wax qalalaasa xilli qaar ka mid ah dhinacyada lafta gareen ee ka baxay magaaladaasi ay ku andacoonayaan in dawladda madaxweyne Xasan Maxamuud haatan ay qaaday wada halis ku ah markaasi amniga Baydhabo iyo in dadka deegaanadaasi oo muddo xasilooni helay laga kala tuurayo daawadayaal gudahaan intaas wax ka wararka ugu dambeeyay kala socoteen kanaalka wararka Xukaya TV fadlan daawadi haddii aad halkan la soo gaartay ku soo bir kanaalka muuqaalkana like kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u shid xogaha iyo wararka aan halkan sida joogtada ugu soo gudbino